xabsigan ayaa ku dhex yaala meel buuro badan oo aad u kulul waxna uu 50 kilomitir dhanka waqooyi ka xiga bartamaha magaalada Bombay ee dalka Hindiya. xabsigan iga dambeeya aad arkaysaan ayay ku xiran yihiin 118 dhalinyaro ee Soomaalida ah. maanta ayay ii suurto gashay inaan halkan aan ku booqdo. Ku dhawaad ilaa 1000 qof ayaa ku xidhan oo 118 kamid ah ay yihiin maxaabiis Soomaaliyeed oo laga soo qabtay badweynta Hindiya iyagoo lagu eedeeyay falal la xiriira burcad badeednimo. gudaha xabsiga markii aan u galay waxa aan la sheekaystay wiilasha qaarkood sida Mukhtaar Yuusuf Sheekh Cali iyo waliba Yaasiin Jaamac Diiriye oo kamid ah horjoogayaashooda. waxay iiga warameen xaalad nololeedkooda xabsiga gudihiis taas oo ay ka cabanayeen jiif xumo, cunno xumo iyo waliba caafimaad darro taas oo waliba ay u dheer tahay xukun la'aan tan iyo markii la soo qabtay muddo 7 sano ka hor. markaan ka soo laabtay ayaan raadiyay wiil ay ii sheegeen inuu xabsiga kula jiray 7 bilood oo hadda dibadda loo saaray. waa kan Asad Axmed Cabdulle oo 22 jir ah ku dhashay dalka Holland laakiin halkan xabsi ku qaatay muddo 7 bilood waxana uu kula jiray xabsiga weyn magaalada Bombay wiilasha maxaabiista Soomaalida. muddo 7 bilood xabsiga Hindiya ku xirnay aniga xabsiga Hindiya ku xiran waxa la kulmay nimanka oo burcad badeedka lagu eedeeyay oo meesha ku dhibaataysan oo aniga muddo 7 bilood la soo joogay marka nimanka Soomaalida oo meesha ku jiro dhibaato badan ay haysato furaash kuma seexano joodir kuma seexano waxaan ku seexay jirnay go' yar cunto waxaan cuni jirnay oo geeda laga sameeyay 2 bilood oo marayay chicken ama hilibna siinayaan meesha rafaad badan ku haysato wiilasha meesha ani imika Ilaahay meesha iga soo saaray kiiskayga aniga wili wuu socdaa ani kiiskayga kiis baasaboorka ayaa liga xado oo qof ku sii baxday marka saas way arinta. qaarkood dhalinyaradaasi xiran ayaa ku xanuunsanaya xabsiga gudihiisa waana dhaawacyadii ka soo gaaray markii la soo qabtay rasaas oo dalooga qaaday oo qaarkood wali jirkooda ay ku jirto. qaara magaciisa rasaasas oo askarta booliiska Hindiya ku dhufatay ayaa wali rasaaska madaxa ugu jiro gacmaha rasaas ugu jiro niman waxa jiro oo lugta dhaawac ka oo birar lugta ugu jiro muddo 2011 ilaa hadda muddo ugu jirto magaciisa birar lugaha meesha iskaga rafaadsan. markay timaado dhanka jiifku waxa ay seexdaan dhulka shamiindada ah oo ay iska xijiyaan go' yar oo la siiyay waxaana qolkiiba lagu seexdaa ilaa 33 qof. waxa loo seexdaa 4 qol aan Soomaalideena degnayn min 30 qof aan qolka ku seexnay dhulaan seexa jirnay sasal isku ag seexdaa dhulka sidaan oo kale weey hal go' busto ma jirto dhulkan camal weey aniga waxa la kulmo wiilka ugu dambeeyay dhimanaya ayaan la kulmo aan isku jirnaa. Allah u naxariistay Axmed Khaliif ayaa u geeriyooday xanuunka TB-da oo uu san daryeel caafimaad u helin sida la ii sheegay bishii Maars sanadii 2016. wiilkaas waxa dhacay muddo sanad uu xanuunsanaay takhtar wiigay waayeen takhtarku ugu diiday inay geeyaan markuu si xanuunsada TB-ga qaaday TB xuna ku dhacday heer wuxuu gaaray magaciisa inuu qantuuf dhiig la iyo matag oo dhiig la inuu matago markuu xaaladiisa xumaatay ayay magaciisa takhtarka geeyeen markaas xaaladiisa markaa iska xumaatay halkan uu ku dhintay markaa Hindiya sababtu ku dhintay waxa weeye takhtar la geeyay waa la daaway waay sanad ka bacdi markuu xaaladiisa xumaatay takhtar la geeyay. xogayaha koowaad ee safaaradda iyo waliba qareenka u dooda wiilasha ayaa iyaguna xabsiga booqda maxkamadda kadib si ay ula socodsiiyaan xaaladda dacwada halka ay marayso. Axmed Ciish ayaa iiga waramaya. waxaan aad ugu mahadcelinaynaa inaad nagu soo booqatay halkan insha Allah maanta waxaan ku soo booqanay maxaabiista xabsiga waxaana u sheegaynay kaliya maanta maxkamadda shalay wixii ka dhacay iyo hawsha meesha marayso waxaan rajaynaynaa haddii Rabbi idmo sidoo qareenka noo sheegay in hawsha oo 3 bilood hadda wixii ka dambeeyay uu ku soo gabagaboon doonto qareen Fushujid oo qareenka u dooday maanta noogu yimid mar walba maxkamadooda dhacdana waxaan sameeynaa safaaradda waa u nimaanaa ala waxa dhaca u sheegnaa waana ku booqanaa meesha. wiilashan ayaa la soo kala qabtay 3 jeer oo isla sanadii 2011 waxaana maxkamadda la isugu soo laaban doonaa maalinta Isniinta ee bishun ay ku beegan tahay 6 Maarso. Ibrahim Umar Baafe wararka Universal magaalada Bombay wadanka Hindiya.